madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo ayaa ka qayb galay aas qaran oo Allaha u naxariistay magaalada Hargeysa loogu sameeyay Cabbaas Idris waxaanu tacsi u diray guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland oo ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Cabbaas Idris sidoo kalena tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaanu ugu duceeyay inuu jannatul firdaws Ilaahay ka waraabiyo waa kan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlaya Cabbaas Idris oo muslimiin ku dhintay إلهي نحرتي جناها كورافشو سمري يمنا كل جاي نجورسيه إلهي وحنا كبرنا إنه جنادي إلهي كورافشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cabbaas Idris waxa uu ahaa muwaadin reer Soomaaliland sidoo kalena waxa uu ahaa muwaadin u dhashay wadanka Ingiriiska oo asal ahaan uu ka soo jeeday waxa uu yimid dalka Soomaaliland xilligii gumeystihii oo uu ka tirsanaa ciidamadii Ingiriiska waxa uu ka hadhay ciidamada Ingiriiska waxaanu ku sugnaa Soomaaliland muddo kor u dhaafaysa 70 sano asaate waxa uu diinta Islaamka qaatay sanadkii 2010 Cabbaas Idris oo magaciisii hore la oran jiray intii aanu diinta Islaamka qaadan la oran jiray John Drysdale ayaa guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland ayaa inta uu ku sugnaa Soomaaliland waxa uu ahaa qof door laxaad leh ku leh hadaba halka lagu aasay waxa ku sugnaa mas'uuliyiin waxgarad wasiiro iyo dadweyne kale oo tiro badan oo dhamaantood ka hadlayay doorka uu ku lahaa Soomaaliland sidoo kalena sheegay shakhsiyadiisa oo ay ku sifeeyeen inuu ahaa shakhsi aad u wanaagsan kuna la sifaysnaa dhinaca waxbarashada iyo waliba sidoo kale tii uu deganaa magaalada Gibiley oo ahayd halka ugu badan ee uu noloshiisa ku soo qaatay kala shaqeynayay horumarinta beeraha waxaana halkaasi hadlay mas'uuliyiinta uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda madaxtooyada adna aadan iyo waliba mas'uuliyiin kale dhamaantoodna waxay yiraahdeen sidan wuxuu yimi wadankan 1943 isagoo askari laba xidigla oo dhalinyaro ah xilligaas wuxuu noqday district commissioners uu ka soo noqday Laascaanood iyo degmooyin kale oo fara badan oo Soomaaliland xilliga dawladda Ingiriisku wadanka Soomaaliland uu ahaa maxmiyadii boqortooyada Ingiriiska ka mid ka ah taariikhda Soomaaliland waqtiga hore nin ku caana buu ahaa nin dadkan kala yaqaan buu ahaa John anigu shakhsiyan waxaan bartay 1991 xilligaas oo aan duqa magaalada Buuxa anigoo nin dhalinyaro ah waxaan ku xasuustaa aqoon dheer waxyaalaha aadka iyo cajab geliyay waxa ka mid ahaa subax ka mid ah subaxa ayaanu israacnay magaalada Burco dabeedna waxay kulmeen rag waaweyn oo qaarkood yiraahdeen ma la garanaysaa dabeedna ninkaas dhowr iyo kontonkii 5 iyo kontonkii joogay ayaa wuxuu soo saaray raggii nin waliba wuxuu ahaa waxyaalihii igu mucjisada badnaa ayay ka mid ahay nin ka mid ah odayaashaas oo aad isu bedelay ayuu eray waxaanin ay family-gayga ama ehelkayga ay saaxiib yihiin anigoo yar oo wax baranaya dalka Ingiriiska jooga ayaan bartay John Drysdale ama Cabbaas Idris wixii farriima ama warqadaha ee aabbo yarxamo ii soo dirayo ii soo qaadi jiray wuu iwaanin jiray waxbaru oran jiray wuxuu ahaa dadkii si weyn wax igala qabtay waxbarashada jaceelkeeda wuxuu in badan ila qaybsan jiray waxyaabaha uu qorayo qoraabo ahaa markuu qoro maqaal ama doonayo inuu alifo wuxuu kelmadaha Soomaaliga ah buu weydiin jiray waan u yara micnayn jiray haddii aan aqoon dhaamo John Drysdale ama Cabbaas ahaa nin saxaafadda jecel Soomaaliland jecel ummadda jecel dalkan jecel anna waxaa sharaf ah in maalinta uu yara xanuunsado inaanu yara dhaqaalayno yara dadka qoraa wuxuu ahaa nin ay family-gayga ama ehelkayga ay saaxiib yihiin anigoo yar oo wax baranaya dalka Ingiriiska jooga ayaan bartay John Drysdale ama Cabbaas Idris wixii farriima ama warqadaha ee aabbo yarxamo ii soo dirayo ii soo qaadi jiray wuu iwaanin jiray waxbaru oran jiray wuxuu ahaa dadkii si weyn wax igala qabtay waxbarashada jaceelkeeda
wuxuu in badan ila qaybsan jiray waxyaabaha uu qorayo qoraabuu ahaa markuu qoro maqaal ama doonayo inuu alifo wuxuu kelmadaha Soomaaliga ah buu weydiin jiray waan u yara micnayn jiray haddii aan aqoon dhaamo John Drysdale Ahmed Khalid Farax Kalson TV Hargeysa